la la la. fanaanada farxiye fiska ayaa dhawaan soo qaaday hees aad iyo aad anshax xumo oo dadka Soomaaliyeedna ay si aad uga caroodeen. heestan ayaa waxay la qaaday fanaanadani fanaan kamid ah kuwa hadda soo baxaya balse daawadayaal intaana u gudageleen muuqaalka oo dhameystiran iyo warbixinta halka aad nagala socotaan waa warbaahinta Glangal Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad ula socoto muuqaaladii ugu dambeeyay ee aan baahinoona noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena. sidii aad ku daawateen barnaamijka qaybihiisa hore ee urudhaca ah fanaanada lagu magacaabo Farxiye Fiska oo kamid ah kuwa qurba joogta isla markaana ugu caansan fanaaninta Soomaaliyeed ayaa dhawaan soo bandhigtay muuqaal si aad loola yaabay culimada Soomaaliyeedna ay si aad uga falceliyeen. fanaanadan oo kamid ah fanaanintii dhexe ayaa horaantii bishii September waxay qaaday hees si aad loola yaabay balse markii heestaas dadka fanaaninta iyo abwaaniinta loo bandhigay waxay sheegeen inaysan wax xigmad haba yaraatee aysan ku jirin. marka laga reebay gabadhan inay fanaanka shaabashu binaysay wiilka yar ee hadda soo kacay isla markaana waxaa loo fahmay in wiilka yarka soo shaabixinaysay maadaama ay tahay qof si aad magac iyo miisaan ugu dhaxlay fanaaninta Soomaaliyeed balse fanaanada lagu magacaabo Farxiye Fiska ayaa arrintan si aad uga carootay sidoo kalena ku tilmaantay fanaanintaasi inay yihiin kuwa fankeeda dhaleecaynaya. lama soo oga sida fanaanadan heestan cidda qaaday iyo cidda sameeyay iyo sababta ay ula qaaday wiilkan da'da yar oo ay sheegtay inuu la eg haba wiilkeeda. waa sida ay sheegeen dadka ku tacliiqiya fanaanadan heesta ay soo saartay dhawaan. dhanka kale warbaahinta Glangal Media oo la xiriirtay Farxiye Fiska qodka telefoonka ayaa ka gaabsatay inay arrintani wax faahfaahin ka bixiso balse waxay sheegtay inay fanaanka yarka ay ahayd inay soo caan bixiso isla markaana dadka Soomaaliyeed ay barto si ay heesihiisa u dhageystaan isla markaana maadaama ay iyadu tahay fanaanin dadka Soomaaliyeed ay si aad u yaqaanaan fankeedana ay xiiseeyaan dadka Soomaaliyeed inay soo shaac bixinaysay fanaankaasi. intaas ay ku koobtay faahfaahinta ay siisay warbaahinta Glangal Media. fanaanada Farxiye Fiska oo hadda ku sugan wadanka Holland ayaa sheegtay inay show ku qaban doonto dalka Holland haddii uu sanadka cusub dhamaado ama uu sanadka cusub la galo aan dhahe. fanaanadan ayaa hadda waxay wajahaysaa dhaleecayn uga imaanaysa taageerayaasheeda isla markaana sheegay inay hoos u dhigtay sumcadeeda aysan marnaba filaynin inay fanaan noocaas ama qof noocaas ay la soo heesto isla markaana waxayse la soo qaado. waa sida ay ku dhaleecaynayaan fanaaninta iyo qaar kamid ah abwaanada Soomaaliyeed iyo qaar kale oo badan oo kamid ah taageerayaasha fanaanada lagu magacaabo Farxiye Fiska oo hadda wajahaysa culays uga imaanaya taageerayaasheeda. balse fanaanada ayaa sheegtay inay sii horumarin doonto fankeeda isla markaana wiilka yarka ay ka go'an tahay inay soo shaabixiso heesihiisana ay rabaan inay dadka Soomaaliyeed dhageystaan. sidoo kalena waxay sheegtay in fanaanadani uu fanaankaasi buuxin karo kaalimo ay baneeyeen fanaanin hore waa marka loo eego dadka hadda jira sida Fartuun Balbalaarka iyo qaar kale uu kamid yahay ninka lagu magacaabo Faldagan ee ku sugan dalka Belgiumka isla markaana dhawaan sheegayba inuu soo wado sanadka cusub ugu yaraan 50 album oo heesa oo uu sameeyay intii u dhaxaysay bishii September ilaa iyo dhamaadka sanadkan ee December. lama oga sida uu sidoo kale fanaanka lagu magacaabo Mursal Faldagan oo asna sheegay inuu buuxin karo booska uu banay doono allaha madaxiisa raajiyay fanaanka lagu magacaabo Xasan Aadan Samatar halka fanaanada kale ee Fartuun Balbalaarka iyo iyaduna booska hor ka cariirsanayso halka ay banay doonto fanaanada lagu magacaabo Hiban Nuura iyo sidoo kale qaar kale oo badan iyadoo sidoo kale ay fanaanada lagu magacaabo Balbalaarka ay sheegtay inay tahay magaalka sanadkan u joogta dadka Soomaaliyeed waa sida ay hadalka u dhigtay wareys ay siinaysay horaantii sanadkan fanaanadaasi lagu magacaabo Balbalaarka. dhanka kale fanaanada Farxiye Fiska ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in habeen dhaweed show ay ku qabanaysay wadamada Yurub meel kamida in sidoo kale la arkay iyadoo sameynaysa si anshax xumo ah iyo dhaqan xumo ah balse lama oga sidii arintani u saameyn doonto sumcadda fanaanada lagu magacaabo Farxiye Fiska oo sanadkan wajahaysa colaad iyo ciriiri badan oo uga imaanaya dadkaasi. haddaba heestaas oo ay la qaaday wiilkan yarka ayaa waxaad ku arki kartaa muuqaaladan ay ka mid ka yihiin iyadoo sameynaysa waxyaalo anshax xumo ah isla markaana fanka Soomaaliyeed ku ah sumcad dil. fanaaninta dambe
ayaa hadda ku caanbaxay inay sameeyaan waxyaalo badan oo dhaqan xumo ah halka fanaaniintii hore aan marnaba lagu aqoonin waxa noocaas oo kale ah inay ku kacaan ama fanka Soomaaliyeed ay ka gudbiyaan fariin noocan oo kale ah. Haddaba nala daawo muuqaalkan iyo sida qaabka ay Farxiyo Fiska wiilkan ula dhaqmayso ama xabadka la isku gelinayo. fananka ay dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin waxay ka fahmeen fanaaniintu fisqiga iyo fasahaadka tirada badan. waa tan Farxiyo Fiska iyo qaar kale oo badan oo dharka soo dhigtay isla markaana baneeyay qaybo badan oo kamid ah jirkooda iyadoo fanka halka lagu qaaday heestan ay tahay goob mugdiya lama sooga waxa ka dhacay halka. Farxiyo Fiska ayaa ah qof si aad looga dhex garanayo fanaaniinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qurba joogta oo ay si aad uga dhex muuqato isla markaana waxay ugu yeeraan xidigtii fanaaniinta qurbaha. fanaanada Farxiyo Fiska ayaa waxa ay leedahay heeso si aad looga yaqaano geyiga Soomaalida isla markaana ay si aad u dhageystaan heesaheedana yahay kuwa aad loo jecel yahay. heesaha ay Farxiyo Fiska leedahay kuwa ugu caansan waxaa kamid ah heesta ay qaado ee la yiraahdo Wadnaha Idhagle dhag hadba sida aad u taqaano heestaas oo si aad looga dhageysto geyiga Soomaalida. haddaba fanaanadan ayaa si aad waxay waayahan u soo wajahaysaa sumcad darro habba maalin meel ku soo hoyanaysa oo si aad habba hoos sumcadeeda ugu dhigaysa. horaantii 2017 ayay ahayd markii fanaanadani loo soo qaaday hees si aad loogu dhaleeceeyay looguna fadeexeeyay iyadoo sidoo kalena muuqaalo badan laga duubay oo anshax xumo ah qaarkoodna ay ilaa iyo hadda yaalaan barta YouTube-ka oo aad ka heli karto haddii aad raadiso. fanaanada Farxiyo Fiska ayaa ahayn markii ugu horeysay oo ay fadeexad noocan wajahdo isla markaana baraha bulshada ay qabsato fadeexad mid la mid ah. sidoo kale fanaanadan ayaa waxa baa leeyahay ninkeedii hore ee Bashiir Hanuuniye iyo ayada waxyaalihii isku diray waxay ahaayeen inay tahay qof si aad u dhadhac badan isla markaana aan balahayn xishoodka lagu yaqaano marwooyinka la qabo iyo sidoo kale xishoodka lagu garanayo gabdhaha Soomaaliyeed halka dadka qaarba ay leeyihiin fanaan maba xishoodaba sidiisa dhanba fanaaniinta ayaan baahan kuwa xishooda balse fanaaniintii hore ee hobalada waa bari ayaa qaarkood waxa ay leeyihiin markii anagu aan heesi jirnay oo fanka aan ku jirnay ma aanan ahayn kuwa sidaan dadka ula dhaqma ama sidaan oo kale dadka u fadeexeeya. haddaba waxaan idin tusi doonaa muuqaal yar oo ka turjumaya fadeexadaha lagu qabtay fanaanadan Farxiyo Fiska bal muuqaalkan la arag. hadda waxaan filayaa inaad si aad uga bagatay shakhsiyadda Farxiyo Fiska iyo sida qofka hadda lagu qabtay muuqaaladan iyo kuwa kale oo badan oo baraha bulshada iyo meesha lagu magacaabo YouTube-ka intaba yaala goobta oo hadda aan kala hadlayo. haddaba fanaanadan ayaa waxay si badan u soo wajahaysaa caqabado uga imaanaya taageerayaasheeda dhanka fanka isla markaana hadda waxaa leeyahay Farxiyo Fiska waxay dhuminaysaa 70% taageerayaashii ay lahayd. labadii sano u dambeysay ayaa la sheegay inay Farxiyo Fiska lumiday taageerayaasha ugu badan kadib markii la sheegay inay Farxiyo Fiska la soo qaadeen dad aan u qalmin shakhsiyadeeda faneed in ay la soo istaagto masraxa isla markaana ay la haysto. Farxiyo Fiska ayaan la ogeyn sababta ku qasbayda inay fanaaniin iyo caruur yar ay la soo qaado heeso isla markaana la soo geliyo baraha YouTube-ka ama barta Facebook ay ku leedahay intaba. Farxiyo Fiska ayaa sidoo kale waxa loogu baaqay inay ka waantowdo dhaqamada noocan oo kala ah isla markaana ay ilaalido shakhsiyadeeda qofnimo si dadka Soomaaliyeed ay ugu soo hirtaan fankeeda isla markaana ay u noqoto dhaxal reebka fanaaniintii hore maadaama iyadu ay tahay kuwii fanka ku soo biiray xilliyadii dhexe wixii ka dambeeyay burburkii kadib oo aysan jirinba wax fan ah Soomaaliyeed leedahay ama meel masraxiyada oo dadka lagu kala saaro balse dadka abwaanada ah ee heesaha iyo laxamada sameeya ayaa u xaqiijiyay kanalkan Galaangal media in Farxiyo Fiska fankeeda iyo erayadeeda iyo waliba codkeeda intuba uu yahay mid u qalma inay heesto ama masrax ay soo istaagto. fanaanadan balse ayaa waxay hadba maalinta ka dambaysa waxay noqonaysaa qof luminaya shakhsiyadeeda qofnimo iyo waliba fankeeda oo la leeyahay waxay hormuud u noqon lahayd fanaaniinta Soomaaliyeed ee da'yarta ah ee aan lahayn fanka balse waxaa
fankeedii ku ciyaaray muuqaalna ashaxumo ah dad aan u qalmin fankeeda ay la soo istaagaydo masraxiyadda islamarkaana ay la heesayso. Lama oga tillaabadani xilliga iyo inta ay sii socon doonto. Farxiyo Fiskana ay kusii jiri doonto noloshan adag ay ku luminaydo taageerayaasheeda ugu badan. Waxaan idinla wadaagi doonaa waraysi iyo xiriir aan la sameynay Farxiyo Fiska islamarkaana ay ku faahfaahinayso arrimo badan. Waa marka ay ugu horeyso oo ay sheegtay inayna siin doonto waraysi maadaama hadda ay tahay mashquul si aada. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro.